ergadan ayaa waxa ay qayb ka yihiin xubno lagu martiqaadayo shirka wada tashiga ee beesha Sade ee dhawaan lagu wado inuu ka furmi doono magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo 19 kamid ah odayaasha dhaqanka ee ka qayb gali lahaa shirka ayaa soo gaaray magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo iyagoo ka kala yimid magaalooyinka Kismaayo, Nairobi, Muqdisho iyo Baardheere waxaana garoonka ku soo dhaweeyay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ay horkacayaan odayaasha dhaqanka ee magaalada shirweynaha wada tashiga beesha Sade ayaa waxa shir gudoominayo ugaaska beesha Sade ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi oo hore shirka furitaankiisa ugu cilaamiyay qaar kamid ah odayaasha magaalada ayaa ergada odayaasha garoonka ku soo dhaweeyay iyagoona uga mahad celiyay safarkii dheeraa ee soo galeen inay shirka ka qayb galaan iyo sida ay u ajiibeen martiqaadka loo fidiyay soo dhaweynayna ugu faraxsanahay hadaan nahay dhalinyaro gabdho odayaal waxgarad nooc kasta oo nahay dadka reer Garbaharey waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga nooga yimid Kismaayo, Baardheere, Muqdisho, Nairobi intaasoo meelood wafdiga nooga yimid oo wafdigii labaad oo hadda loo yimaada wafdigaas ay aad iyo aad soo dhaweynaa walaalayaal qalbi faraxsan iyo gacno fudud ku soo dhaweynaynaa wafdiga nooga yimid waanu soo dhaweynaynaa oo saddexdaas meelood oo sheegay xamar, Nairobi, Baardheere si farxad oo wadatinimo ay soo dhaweynayna waxaan ku soo dhaweynaa waxa weeye waa dalkii waxa weeye talada beesha Sade oo garanaysa aan soo dorsano oo soo marnay inaanu soo imaanin taasoo intii muddo 3 bilood aan wadnay waan wada xariirnay sida xaqiiqadii waxaad ogtahay ma ku sheegaa waa waxaad ogtihiin waxa weeye soo dhawaada walaalayaal xubnihii ergada soo gaaray magaalada Garbaharey ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta garoonka loogu suubiyay iyagoona sheegay in ay rajeynayaan in shirka uu ku soo baxo bulshada reer Sade wax midnimadooda ka turjumayo inta ka socota waxaan madaleynaa dadka Garbaharey ku nool nooc ka shaygan oo yaab gabdho dhalinyaro nooc ka shaygan waxaan soo maantay odayaashiisa iyo ugaaskiisa iyo shacabka dhammaantiisa gabdhaha iyo dhalinyarada iyo saxaafadda iyo kulligooda waa u mahadnaqaynaa intaas ka dambe aad iyo aad markaan u mahadnaqna kadib waxaan iska waraysan doonaa markaan degno oo meel fadhiisanaan wixii talaa iyo haddii aan ku roya iswaraysi u gudbi doonaa oo maanta hal gaarti ah Garbaharey oo gobolka magaalada Saake dadka ugu martiqaadiya aniga waajibka ugu heedaan isku nimid waxaan ku mahadcelinaynaa qamanda iska leh qabanqaabada iyo qalqaabada iyo suuqyada dad kale baan aad u mahadcelinaynaa mahadda kadib waxaan wariisu imaada qaalihiina la katashta dadkiina u tashta dadkiina alxamdulillah dana wanaagsan ku hogaamiyo dadka ku yiraahdo waa Ibtisaam Suldaan Maxamed Ibtisaam Fani RTN TV magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo.